وكيمد معناها تيجي اسكدي باي جرمال حدا سوق شيء أن قابل أم بحقيقة تكون كلا بحنا كلا بحنا هدي أتفرل مركو غوريس باستا بيكو بدي سوق عسباكو بدي مركا waxaa u dhaxeeyo dadna sharcigi waqtigi macnaha sharcigi dhaqan galkiisa qabt hebel qabta ku dhacday maqli jirta sanki ataagaysid nidaam kiina dadkii soo barin dadkii daar ku jira daruur markee uriyaahe waka soo dhawaad saaxiibayaal ku soo dhawaada maanta caawa studio kala kacsan meel walba saacad walba iyo daqiiqad walba idin tahay soo dhawaada caawa adaa marti lagu yahay aad iyo aad waxa waaye saxafiga inta badan waxa la yiri markay imaado hadal ma sugo fanaankuna markay hees timaado mikrofoonka looma sheego dhakhtarkana markuu qaliin arko looma sheego marka wariyaaha ugu soo gashay waa dhex qaaday soo dhaw marka Xuseen Geesay mid ka mid ah wariyaashii ugu weynaa dalka ayaan mar kale caawa ama markii ugu horeysay si kafol aan u fadhiisay anagoo soconaa arkaysay caawa studio joognaa wax badan ayaan ka weydiin doonaa nolosha wadankan Germany ama Deutschland isbedelo fara badan ayaa Jarmalka ka jira tan iyo 2015 markii dawladii hore Angela Merkel ay hogaaminaysay oo ay soo dhaweysay qaxootiga aad ku faraha badnaa oo Suuriyaanku u badnaa haddase waxay wax kasta iska bedeleen xaaladuhu sidii ahaayeen 15 sidii lahaa maanta lama aha 15 maxaa ka rataabo sidii lahaa sanad ka hor maanta lama aha waxyaabo badan ayaa isbedelay marka Geesay ugu horeen faahfaahin waxaad naga siisaa nolosha guud oo ay ku sugan yihiin qaxootigu waa laba kuwa wadankii la haysta meel degan shaqaysta iyo kuwa wadanka ku cusub qaxootigii ugu dambeeyay 6 bil ugu dambeysay soo galay ilaa iyo sanadkii ugu dambeeyay ayaan diradda saarin doonaa xaaladooda siday tahay sida loo qaabilo nolosha kaamka ay ku sugan yihiin xilliyada loogu talagalay kaamka inay joogaan waa sidee jawaabaha ay helaan marka ay maraan interviewga oo kaleeto guud ahaan sawir waxaad naga siisaa qaxootigii ugu dambeeyay la qaatay 6 bil ugu dambeysay iyo kuwii la qaatay sanadkii ugu dambeeyay horta qanci waa mahadsan tahay lixdii bil ugu horeysay sharci waxaa jiray oo dhaqan galay sanadkan gudihiisa oo qaxootiga processka loogu fududeynayo awal waxaa jiri jirtay qofka in la iska dhageysto ilaa iyo 7 sano 6 sano in la iska dhageysto ama ilaa 5 sano 4 sano 3 sano 2 sano oo lala hadlin garoorta ama qabalin laakiin hadda qofka hadda markuu isdiibo bil kadib interviewga yar uu galaa hadda waa bil waa gartay bil kadib interviewga yar uu galaa bisha ku sii xigta ama interviewga weena loo soo diraa si fiican ama hadii uu wadan kale oo fara ku leeyahay Dublinka loo soo diraa marka Dublinka markii loo soo diro Dublinka waxa lagu weydiinaa su'aalooyin wadankaas maxay sida soo dhiibayso wadankaas maxaa oo soo martay faraha ku leedahay waxyaabo badan la weydiinaa halkaas aan su'aalna ka weydiiyo qofka markuu is dhiibo waxa jira process uu maraya kaamka kan koowaad interviewgii wax looga qaado interviewga labaad oo kaleeto ma kaamkii loogu talagalay muddada 6 bil inuu joogo ayaa looga qaadaa mase kii koowaad uu iska dhiibay labay noqonay qof dadka qaarkood waxay ku maraan kii koo iska dhiibay ay ku maraan meesha loogu kala tuuraa wixii dhan meesha ku kala baxnaa hadii ilaahay calaf kuugu talagalay inaad sharciga hesho waad helaysaa hadii wixii ku qornaa heshana waad helaysaa qof ugu badan waa 4 bilood qofkii ugu badan oo waasho 4 bilood jawaab suuga taas waxa la karaa waa isbedel weyn oo ku yimid qaxootiga iska dhiibay Jarmalka hadda soo gashay aan ku qaabil aan baxiga tagwa kala baxnaa hadii aad far leedahay sida wadamo badan baa la soo maraa Belarus Poland iyo wadamada Yurubta gaajada oo kale aad baa loo soo maraa iyaga faray dadka ka dhigaan Greek oo kale far baa dadkii kulay qaarkood sharci ka soo qaateen bal ka waran kuwaas horta Greega xoogaa waa iskroonyaa عاديات يعني مركز فرق ولا ده مركز فرق ولا ده
واشكرني waxa kala jeedaa yani qofka laga ma yaabo macnaha processka waqtiga kugu dheeraanaya meel laakiin sidis kale waa heli kartaa waa heli kartaa sharciga inaad hesho u badan tahay boqolkiiba si fiican boqolkiiba 70 waa Greek Greega Poland Belarus Poland horta maba loo kala dhaqaaqay why hadda ma bil hadda isdibti isbisha oo interviewga Dublin ka gashid isla hadda ii soo celiyay okay ma jiraan marka Sweden iyo way kuwaas iska daab waa sheegin baa waxa ka hadlayna wadamada yaryarka qofka faraha ku leh Poland oo kale Poland way cishataa Romania way cishataa Serbia way cishataa Belarus ma Serbia kuma jirto okay inkastoo ay xid wanaagsan leedahay Yurubta Croatia way ku jirtaa waa wadamada adiga midowga Yurub qaybta Hungary way ku jirtaa wadamadaas oo yaryarka oo laga soo tago oo markii laga soo tago wadamadan Scandinavian-kan iyo sidoo kale German-kan iyo wadamada kale markii laga soo tago kuwaas waxa waay degdegsiimo celiskood markii laga reebo Greek waxa jira dad yimid sanad ka hor wadankan ama hadda Hamburg joogaba ama wadamadan German-ka kale waa federal gobolkii qaataba wali aan marin interviewgii labaad dadna hadda aad ii sheegtay inay ku marayaan 2 bilood 3 bilood ugu dambeyn 4 bilood maxaa farqiga u dhaxeeya labadaas dad farqiga waxa u dhaxeeyo dadna sharcigii waqtigii macnaha sharcigii dhaqan galkiisa hebel qabtaa ku dhacday maqli jirta waa jirta waayo qabtiya ku dhacday qorshahan cusub wuxuu yimid bilooyinkan tan kale dadkii ku hore sanad ka hor mareen waxay qaadan jireen lacagta oo cayrta oo lacagta yar waxay ku qaadan jireen kaash ahaan si fiican hadda kaar waa loo bedelay kaarka waa xaalada mana kala bixi kartid si fiican laakiin waa ku adeegi kartaa laakiin ma kala bixi tusaale haddii qofka anigoo kaleeta aan ku adeegto lacagtii aan siiyo ka war wallahi intee gees ma leeyahay adeegana ama qashin Yurub oo kaleeta markaad aragto Jarmalka wuxuu ka mid yahay wadamada ugu wanaagsan nolol ahaan iyo maxaa la yiraahdaa in lagu noolaado waa kuwe saddexda wadan maanta aad isdhihi karto qofka ku cusub dadkeen waa wada taariib dadkeen waa wada socdaal Soomaaliga aad ku talin lahayd inuu iska dhiibo qaaradda Yurub saddexda wadan aad ku talin lahayd horta marka hore aniga taariib ma ku taliyaan wadankaaga iska amaasan leedahay marka horeba sabab wadankii waad ogtahay xaaladda jirto waa ogahay laakiin markaad wadankaaga joogto iyo markaad Yurub joogto aad iyo aad kala farqiyatiin si fiican yani qof waxaa tahay warqad ku joogo wax yar maxaa la dhahay ma taabi kartid sankii aad taagaysid nidaamkiina dadkii soo barin dadkan hadda iyo jawi cusub maamul cusub jawiga saxsan yahay qofkii shaqo wadanka ku haysto nolol ku haysto waxaan leeyahay horta meesha iska kii soo baxay maxaa leedahay kii soo baxay marka oo dhaxal soo maroy kan dhaxal soo maroy kii soo bixin meesha iska joog kan dhaxal soo maroy waxaan leeyahay hadda isdhiibaysid Yurub ko أنا ودن هبل ما دحاي سفيان قفل بدن وسومرا عاديات فرا لغا سو قادا سفيان نيو تلياني هدي فريق ugu laga qaado aatay iska joog hawareerin waa qodob isbeen hadii soo gasho iska joog meeshaad iimaanso wali waxa la sheegay Isbaanishka Talyaaniga oo kale dacwooyinkiina ku fiican yihiin familada la soo qaado aad ay ugu fiican si fiican hadii lagu dhaho Sweden soo horgashid meesha la joog adig meeshii farka dhigato wadankaas wadankaas joog sababtoo wadankana farka dhigtamo inta Jarmalka imaatamo 6 bilood lagu awalkii waxa la sugi jiray dadka waqtiyo badan muddo badan qaadan jirtamo hadda waxa isla hadda interview markii laga qaado interview Dublinka lagu soo diraa warka diiday waa dhadhoomane gas waxa laga qaado Osfeski ama deganaashi wadanka ku joogaysa ma laga qaado mid toddobaad lagu siinaa si fiican waxa lagu dhaha soo doono ama ugu yara lacag soo doono marka doonaysan waa lagu dafaa markii lagu soo dafo wadanka kale lagu geeyana meel lagu gelina mana bixi kartid waa lagu control bal ka waran nolosha dadka iska dhiibay wadankan ama Hamburg oo kaleeto nolosha bilowgu iskoolka aada kaamka aada dad badan la jiifta xariir la geeyay
noloshooda ka waran waxa la yiri geel hotor waa laba jirku soo wada maray nin jarmal joogo aan soo maray ma jiro laakiin waa kala duwanaa xaalka hadda waa sidee xaaladda markii loo fiiriyo way kala tahay si fiican nolosha kaamka nolol adag waa absolute sabar bay rabtaa qof waxay u baahan tahay adag dulqaad badan sabar badan alla ka cabsi badan waa gartay boodbood uma baahna nolosha kaamka waxaa la isku baraa askariga markuu galo tababarka wuxuu sharciga ku dhaqmi lahaa wadanka markuu micnaha ama booliis haduu yahay ama military sharciga uu ku dhaqmi lahaa haddii colaad la kulmana siduu u soo difaaci lahaa aa lagu baraa haddii taas ah ka dhacdid ibrata waa sax kaamka markaa ku jirtid waxaa lagaa rabaa inaad iskuul aadid dadaasho iskuulkuna ma aha hadda mid wax badan oo physics iyo dunya ku baranayso physics iyo chemistry iyo biology ma waa luqad yaris luqada baranay luqadana waxa lagu bartaa 7 bilood Allahu ta'ala meesha ugu badan 9 bilood waa qofkan waxay gashaa intuu cusub yahay ay gashaa maadaama wixii dada marka waxay sameeyaan kisto waxay dhahaan niyo xagga laga soo wacay wadankii wuxuu isdhaaniyo waa lacag samee dhiga ku galaa qartan lacagu samee lacagu shaqo galaa lacagu helaa lacagtii wuu diraa ma diray markuu diro waxa ku iimaanaysa marka waqtigii sharciga la qaadan lahaa hal shahaado oo luqada ka ugu yaraan bi'ains ma hayo qofkii ma hayo waa xeerka dhexe oo maaragtay luqada qofkiina ma hayo haddii koo waxay noqonaysaa soo bilaw waa sababta loo dhahay marka kaamka adoo jooga ka faa'iideyso inaad luqada maadaama dawladda ka bixinayso laakiin markii oo dawladda marka koowaad warqad ay ku soo dirto aadid iska baajis marka labaad adaa iska bixinaa aadiyaad intee keenay waa dhibaato lacagteedana qaali waay iskuulaadka say ku qoran tahay warqadda may 1500 arkay biyaskaas 1800 800 adi inay ka go'do macquul ma ada naftarkaaga way kugu adag tahay maadaama laga ehelkaaga qaraabada dada leedahay aadiyaad marka nolosha kaamka way adag tahay waxaa kaloo oo aad u adag inaad wadanka horta la qabsatid si fiican marka hore waa lagu wareerinaa Soomaali dad meeshan waxaa joogo kala socdaan laba islaamis ma arkayso wadada markii la iska horimaado waa la sacag maraa dad isku fiican ma aqaanaan meesha isku soo dagaalaan waliba waxa laga yaabaa qofa maanta ama muddo saaxiib ahaydeen oo kaftami jirteen isbuuc kadib asoo lagu kacaarkay ku agmaraay ana waxaan fahmi waayay dadka cid isku day wadankiina waa isku dagaalsan yihiin haddii us magaalada yimaadana oo dadka sii wuxuu leeyahay Soomaali guraade qofa wuxuu ku dhahaa markuu ugu horeyso wuxuu ku dhahaa Soomaali iraadi si fiican markuu xoogaa jooga tareen si loo raaco xaafadaha meelaha train station si loogu dib u bartana wuxuu ku dhahaa mataqaana niyo meel Soomaali fiiriya meel Soomaali iraadi meel Soomaali ka dheer tahay aan rabaa si fiican qaarkood iskuulaadka xataa waxay dhahan meel Soomaali dhigata mar ma jirto taa waxay tahay waa waxyaabaha aniga ma aqaan umada cid qurbaan loogu yimaado wax qurbaan loogu yimaado aad iyo qurbaan waa iska dhibaato asaahate waxa loogu gudbi karaa qof walba inuu yani qoyar socod ahaado wixii isaga dan u ahna oo markasta ka hormeysay dantaada haleer maqaariya loogu marka dantaada wax kasta iyada ka muhiimsan hala dadaalo laakiin ana waxaan kula dardaarmaa dhalinyarada inay wax bartaan marka hore iyaga wax bartaan aad iyo aad luqadda wadanka iyo sharciga wadanka ay fahmaan si fiican kadib ay shaqo bilaabaan haddii kale moo dad badan oo beerta anigu mislahaana niyo marna kama fikirin qof Soomaali oo qashin aruurinaya Yurub arki doonta qashin noocee dad qashin daldalay ma arkino oo waalan macnaha dad waalan qace caadi macnaha qof caadi ma sheegayo dad qace sheegayo waxa waasteen dhalinyaro anagu saaxiibaan ahayn kubadda wada ciyaareynay qaarkood ay hayeen kuwa wanaagsan laakiin waxaad ogaataa qof kasto yani waalida oo ilaahayo qof kasto dhaqaaqay waxba dhaqaaqsiin isagaan u sababa gacantiisa
قف أن بلود لهين إنه واجتهد روي على ذاته صح قف بلود أنا لهين هذا حشيش عم بيها عبو هدي قف كاس واحد بلودة ثابن وأذكته مسكحلي سينيك عضو صابته لحدي سلاح ذو قوا عافما ذو هستا إلى هي وكعب سنة مسيت وكظهر ريا الحمد لله الحمد لله لكن كان كلمتي سجى سؤال قعنتي سوق سنة محلي هذا وحن لو تلقلين meeshaan qurbo waay aabaha ma joog hooyada ma joogto kan dadku ugu dhow inkastoo qurbaha qabiil iyo baxto la isku soo dhaweysto hadhow marka wax ku gaaraan ama isbitaal lagu dhigo wallahi kan saaxiibkaaga laga yaabaa inuu kaa naxo oo ku soo booqdo waayo qof walba uu ordayaa wuxuu raadinayaa shaqo raadinayaa ama waqtigaa ku yar maanta ani saaxiibkayga haddii uu yani wax soo gaaraan wallahi waa adagtaa 3 maal xiriir ma tigi karo because كاين سايد وقت ما هاي ولا ورده aniga markii ugu horeysay aan Yurub lugta soo dhigay wiil saaxiibkeen ku soo degay markuu guriga saas ii keenay waaba iska baxay wuxuu dhaanay inta kariyo ma kasi markaas aan dhahay niyo ilaa ma kasi jirin mugtahay niyo waxaan dhahay oo gasa niyo frinjeerku waa kana waxaan dhan waa kana adile baxsan niyo karso markuu ugu horeysay baasta biyo ku badiyay suugada cusbaa ku badiyay marka dambe niyo hadda waa barta laakiin waata warqeyb labada sameeynayna dhinaca cuntooyinka nolosha waddanka Jarmalka muuqaalka xiga la socdo